السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوا صاحبي qiimaha badan meel kasta aad joogtaan. Casharkan waxaan ku baran doonaa cell contactgiisa, cellka iyo wuxuu ka kooban yahay. Cellku waxa la yiraahdaa bahalkaas saan hore u soo baranay. Haddaba cellkaas wuxuu ka kooban yahay. Cellkaas wuxuu ka kooban yahay afar qaybood. kow taxity, labo formatting, saddex formulas, afar iyo functions. Haddaba cellku wuxuu leeyahay afarta qaybood. waa taxity oo qoraalkii ah. in waxa qoraysa in qoraal ku darsato oo aad wax sarahan saa qoraal ugu darsato, iyo formatting oo mid labaad ah oo qurxin iyo naqshadeyn iyo hagaajin ah. mid saddexaadna waa formulas, waa xisaabaha iyo qaabkii isku waxaynaya ee sharciyeedii hawlihii weeye. midda afraadna waa functions oo wuxuu siinayaa ilaa dhowr halahaas oo function oo xisaabaadka naga kaalmeynaya hadhow xisaabta inaan isku darsano oo inaan waxa weeye diiraha kugu roon yahay aan xisaabta si fudud isku darsano. Excelku wuxuu leeyahay waxyaabo aad u fara badan sida marka halkaan soo fiirso kale, dadii aan hayla saarto kuwana kale halkaan soo fiirso kale ama halkaan oo kale wuxuu siinayaa waxyaabo aad u fara badan. xisaabaadkii oo kale UK waa doonaysaa, Mareykan ma doonaysaa, USA waa doonaysaa, Beijing lacagteeda doonaysaa. adiga halahaas dhan wuxuu siinayaa xisaabaadka iyo qaabkii aan u format gareyn lahayn ama u function gareyn lahayn. marka muuqaalkan waxaan ku baranay cellka qaybihiisa. cellku wuxuu leeyahay afar qaybood: taxity oo qoraalkii ah, formatting oo ah naqshadeyntii, iyo formulas oo xisaabihiisa aan loo aftigeeyo ah, iyo functions oo qaybta afraad ah oo ah inuu siiyo functionaad xisaabta naga kaalmeynaysa inaan isku darsano ama aanu la nimaadno qaabka ugu quruxda badan oo xisaabaadka loo function gareeyo. marka halahaas ayaan ku baranaynaa casharkeenan waa cellka iyo qaybihiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.